والchampion of Somalia. With the recognition of Somaliland, اعترافku wuxuu sidoo kale wataa culays diblomaasiyadeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda Somaliland aqoonsigeeda. sidaan wada ogsoonnahay maalmaha fooday nagu soo leh waxaa la rajeynayaa in wadamo badan oo Mareykanku kow ka yahay oo Israa'iil laba ka tahay oo Imaaraadka iyo Itoobiya iyo qaar kale badan inay ictiraafi doonaan Somaliland maalintii ku beegan tahay 6 December ee bishan nagu soo fooday leh. sidaa awgeed ictiraafka kama hadli doono, laakiin waxaan doonayaa inaan ka hadlo saameyn noocee ah ayuu ku leeyahay bulshada Somaliland haddii la ictiraafo Somaliland. MMJ Gold. ma samaan, ma xumaan, ma wanaag, ma dibadhac, ma horumar, ma xumaan. intaasan doonayn isla eegno waxaanu falaqayn doonaa oo nidaha ka qaadi doonaa arrimo badan. waxaa ka mid ah arrimahan falaqayn doono qodobo badan. haddaan soo koobo waxaa ka mid noqon doona oo doonayna falaqayno kala qaadno qodobadan soo socda. siyaasadda iyo sharciga caalamiga waa kow. lambar 2 waa dhaqaalaha iyo maalgashiga. lambar 3 waa amniga iyo siyaasadda. lambar 4 waa bulshada iyo nolosha maalinlaha ah. lambar 6 waa siyaasadda gobolka Geeska Afrika. waa lambar 6 waa caqabadaha iman kara. lambar 7 saameyntu ku yeelan doono Soomaaliya. lambar 8 aragtida iyo bulshada midnimada qaranka. lambar 8 saameyntu ku yeelan doono Itoobiya. lambar 9 saameyntu ku yeelan doono Kenya. waa lambar 10 waa saameyntu ku yeelan doono Mareykanka iyo reer galbeedka. 11 saameyntu ku yeelan doono ururada caalamiga. 12 saameynta guud ee uu Geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba ku yeelan doono. 12 qodob baan kala qaadi doonaa insha Allah taala. lambar 1 siyaasadda iyo sharciyada caalamiga ah in horreysayna marka Somaliland la ictiraafo waxay si rasmi ah uga mid noqon doontaa wadamada qaramada midoobe ee UN, taasoo sharciyeyn doonta madax bannaanida oo aanay cid kale dafiri karin. safaarado rasmi ah laga furan doonaa ay ka furan doonaan dalalka Mareykanka, UK, Itoobiya, Kenya iyo dhammaan wadamada caalamka. Somaliland waxay sidoo kale iyaduna ku yeelan doontaa safaarado dunida oo dhan, taasoo kor u qaadaysa xiriirka diblomaasiyadeed. waxaa meesha ka bixi doona dooda Somaliland waa gobol iyo waxay ka mid tahay Soomaaliya. natiijada ka dhalanaysa waxay noqon doontaa dal madax bannaan oo leh kursi iyo cod rasmi ah oo qaramada midowga Afrika, IGAD iyo ururo kale oo caalami ah. lambar qodobka 2 haddii u nimaadno waa dhaqaalaha iyo maalgashiga. ictiraafku daawade waa furaha dhaqaalaha, sababtoo ah hadda shirkado badan iyo bangiyo caalami ma maalgeliyaan Somaliland maadaama ayna haysan ictiraaf. markay ictiraaf hesho waxay heli doontaa deyn caalami ah, maalgelin, taageero dhaqaale iyo wadamo kale oo ka caawiya horumarka iyo dhaqaalaha, waxbarashada iyo dhan walba oo loo baahdo. dekada Berbera iyo garoonka diyaaraduhu waxay noqon karaan xudun ganacsiga Geeska Afrika iyadoo la tartamaysa Djibouti. dalal badan waxay furan doonaan xafiisyo ganacsi iyo shirkado saldhigyo ku leh Hargeysa iyo dhammaan gobolada Somaliland. natiijada ka dhalanaysa waa shaqo abuur fara badan, waa kor u kaca dakhliga dawladda, waa qiimaha shilinka oo adkaada, waa nolol dhaqaale oo korodhay iyo adeegyo bulsho oo wanaagsan. qodobka 3 haddii u nimaadno waa amniga siyaasadda iyo gudaha.
ictiraafku haddaba wuxuu si rasmi ah u xaqiijin doonaa ciidamo qaran oo la aqoonsan yahay military iyo biliisba kuwaasoo heli kara tababaro iyo qalab caalami ah. Somaliland waxay noqon doontaa xubin rasmi ah oo ku tirsan Interpol, African Union iyo ururo kale oo amniga ah. Tani waxay yarayn doontaa faragelinta dibadeed iyo kooxo doonaya inay xasilloonida waxyeelaan. Natiijada ka dhalan doonta nabadda gudaha oo sii xoojisa xasilloonida siyaasadeed iyo kalsoonida caalamiga ah. Qodobka afraad, bulshada iyo nolosha maalinlaha ah. Dadka Somaliland waxay helayaan baasaboor rasmi ah oo caalami ah laga aqoonsan yahay dhammaan daafaha dunida oo dhan. Ardaydu waxay si toos ah u heli karaan deeqo waxbarasho iyo fursado jaamacadeed oo caalami ah. Ganacsatadu waxay si fudud u helayaan fiisayaasha ganacsiga iyo heshiisyo ganacsi iyo heshiisyo maalgashi oo caalami ah. Natiijada ka dhalan doonta waxay tahay bulshadu waxay ka mid noqon doontaa dunida la jaan qaadaysa tiknoolajiyadda, waxbarashada iyo horumarka. Qodobka shanaad haddii nimaadno waa siyaasadda gobolka Geeska Afrika. Ictiraafka Somaliland wuxuu si weyn u bedeli karaa miisaanka gobolka. Itoobiya oo hore u muujisay xiise waxay heli kartaa deked rasmi ah oo ay ku tiirsanaato, taasoo xoojinaysa xiriirka labada dal. Soomaaliya waxay wajahaysaa dib u habayn siyaasadeed. Somaliland waxay u noqon doontaa fursad nabadgelyo. Waxay u noqon doontaa chance ay dib ugu eegto hawlaheeda oo ay ku eegto mustaqbalka federaalka ah. Dalalka reer galbeedka waxaa la arki doonaa iyagoo Somaliland xulafaysi cusub la yeesha oo istiraatiiji ah oo ku taala meel muhiima. maadaama meel muhiima ku taalo, dalalka reer galbeedku waxay u soo kala baratami doonaan xulafaysiga Somaliland. Natiijada ka dhalan doonta waxay noqonaysaa Geeska Afrika wuxuu geli karaa waqti cusub oo iskaashi iyo isdhexgal dhaqaale leh, halka tartan siyaasadeed oo cusub uu ka bilowmi doono gobolka. Lambar 6, caqabadaha iman kara. Haddaba si kastaba ha ahaatee, ictiraafku wuxuu sidoo kale wataa culays diblomaasiyadeed oo ka iman kara Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka aan rabin kala go'a Soomaaliya iyo Somaliland. Xilliga kala guurka waxaa jiri kara isku dhacyo sharci, dhaqaale, xuduudaha oo aad la iskugu qabsan doono oo u baahan maareyn xikmad leh. Waa in Somaliland diyaar u ahaataa xisaab celin iyo daahfurnaan heer caalami ah. Wuxuu isbedel weyn ku imaan doonaa siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo sumcadda bulshada. Waxay noqon doontaa waddan madax bannaan oo awood u leh inay qayb ka qaadato go'aamada caalamiga ah, isla markaana la jaan qaado horumarka dunida. Ictiraafku ma aha dhammaadka halgankii, waa bilow cusub oo mas'uuliyad culus wata oo u baahan in aad looga fiirsado oo aad loo eego. Marka Somaliland la ictiraafo, Soomaaliya ayaa wajihi doonta isbedel siyaasadeed oo hore loo arag, wayna ka faa'iidi doontaa siyaasadda iyo sharciga. Haddii eegno, Soomaaliya waxay si rasmi ah u lumin doontaa sheegashadii dhulka waqooyiga amba Somaliland amba gobolada Somaliland. Qodobo badan oo dastuuri ah ayaa u baahan dib u qorid amba bedelid, maadaama ay Somaliland ku sheegan jireen inuu ka mid yahay Jamhuuriyadda Federaalkooda. Dowladda federaalka waxay geli doontaa xilli dib u habayn qaran, iyadoo ay suurtagal tahay in gobolada kale sida Puntland, Jubbaland ay soo jeediyaan tallaabad siyaasadeed oo cusub.
dalabaad siyaasadeed oo cusub. aragtida bulshada haddaynu eegno iyo midnimada qaranka waxaa dhici kara jawaab shuruuc leh oo ay muujiyaan dadka Soomaaliyeed oo weli aaminsan midnimadii 1960 hase yeeshee dhinaca kale waxaa laga yaabaa inay dhalato dood cusub oo ku saabsan qaabka ugu habboon ee Soomaaliya u sii jiri karto. ma aha midnimo xoog leh oo lagu hayo balse mid heshiis iyo iskaashi ku dhisan. dhaqaalaha iyo siyaasadda dabadeed haddii eegno Soomaaliya waxay lumin doontaa dekedo muhiim ah oo berbere ka mid tahay oo imaka ay sheegtaan inkastoo imaka ayna maamulkeeda ina shaqo ku lahayn iyo marin istiraatijiyeed oo ah mid isliin wa ku tirsantiin amba mid ay sheegtaan. haddii Somaliland ku soo biirto ururada dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya waxay dareemi kartaa cadaadis in iyaduna dib u habayso nidaamkeedii dowladnimo iyo ganacsi iyo amni iyo horumarin. saameynta ku yeelan doonto Itoobiya marka Somaliland la ictiraafo. Itoobiya waa dalkii ugu xiisaha badan arrintan waana mid saameyn toos ah ku leh istaraatiijiyadda badda. haddii la eego Itoobiya waa dal aan lahayn bad laakiin uu berberi u yahay albaab nololeed. ictiraafka Somaliland wuxuu siin doonaa Itoobiya fursad sharci oo ah ta ku saameysan heshiis deked amba saldhig ganacsi iyo mid ciidanba. siyaasadda iyo amniga haddaynu eegno Itoobiya waxaa arki doonaa Somaliland iyadoo xulufaysi amni la yeelatay muhiimna u ah inay aamini karto xiriirka gobolka. waxaa dhici kara in Itoobiya noqoto dalka ugu horeeya ee aqoonsada weygiga soo socda Somaliland si ay u dedejiso danaha ganacsi iyo siyaasadeed ee labada dhinac. saameynta ku yeelan doonto Djibouti waxay wajahaysaa tartan adag oo dhinaca dekedaha ah maadaama berberi noqonayso deked caalami ah oo la tartami karta lana tartamaysa. laakiin dhinaca kale Djibouti waxay heli kartaa fursad iskaashi oo ah inay noqoto marin isku xidha labada dal. qodobkan haddaynu eegno waa saameynta ku yeelan doonto Somaliland marka la ictiraafo. Kenya iyo wadamada kale ee geeska. Kenya waxay arki doontaa fursad ganacsi istiraatijiyadeed amni maadaama Somaliland ay noqotay wadan xasiloon oo xiriir dhow la leh reer galbeedka. waxaa la filayaa in Nairobi noqoto xarun diblomaasiyadeed oo muhiim ah oo ay Somaliland safaarad rasmi ah ka furato. wadamada sida Eritrea, Suudaan waxay si dhow u eegi doonaan xaaladda iyagoo qiimeynaya haddii ictiraafkan bedelo miisaanka awoodda gobolka. qodobka kale haddaynu eegno saameynta ku yeelan doonto ictiraafka Somaliland Mareykanka iyo reer galbeedka. Mareykanka, UK iyo Imaaraadku waxay arki karaan ictiraafka Somaliland fursad amni iyo saameyn siyaasadeed oo muhiim ah. Somaliland waa meel istiraatiiji ah oo ku dhow marinka badda baabul mamdaa halkaas oo ay maraan in ka badan 90% shidaalka iyo ganacsiga caalamka oo kala goosha. Mareykanku wuxuu heli karaa xulufo cusub oo amni iyo sirdoon oo ah ka caawinaya dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo tahriibayaasha. reer galbeedku waxay bilaabi doonaan maalgelin ballaaran gaar ahaan saldhigyada badda iyo ciidamada korontada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo nolosha aasaasiga oo ay maalgelin doonaan. qodobkeena kale haddii dul istaagno indhaha ka qaadno ururada caalamiga ayaynu ku eegi doonaa. qaramada midoobay waxay u baahan doontaa inay si rasmi ah u aqoonsato xubinimada Somaliland.
midowga Afrika wuxuu wajihi doonaa cadaadis adag maxaa yeelay haddii Somaliland la aqoonsado dalal kale sida South Sudan iyo qaar kaloo badan amba bayrifa waxay soo qaadi karaan dacwado la mid ah si kastaba Somaliland waxay noqon doontaa tusaale cusub oo dalka Afrika oo qaaradda Afrika oo dhami si nabad ah u helay madaxbannaanidooda. haddaynu eegno saameynta guud ee geeska Afrika marka la soo koobo ictiraafka Somaliland wuxuu noqon doonaa isbeddel taariikhi ah oo dib u dejintiisa taariikheed iyo siyaasadeed geeska waxaa imaan kara iskaashi dhaqaale oo cusub sida Berbera, Addis Ababa corridor ama mashruucyo isku xidha Berbera iyo Djibouti iyo Nairobi halkaasna laga bilaabi karo xilli cusub oo nabad iyo horumar ku dhisan iskaashiga dalalka madaxa bannaan. Somaliland in la ictiraafa Afrika oo dhan waxaan odhan karnaa markaa dambe ugu jirta. ictiraafka Somaliland ma aha keliya guul siyaasadeed ee waa isbeddel caalami ah oo la taaban karo oo wax ka bedeli kara geeska Afrika oo dhan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإمام شيخ البدر كلام ضمن إن شاء الله.